daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku wareysanayno ku-xigeenka duqa magaalada muqdisho mudane iimaan nuur iikar oo inagu soo booqday xaruntayada magaalada heeg ee dalka netherland. iimaan, habeen wanaagsan, ku soo dhawow barnaamijkan. waadna ku maasan tahay imaanshaha aad halkan noogu timid. holan ayaad muddo deganayd, waxaadna go-aansatay inaad muqdisho ku laabato. maxaa kugu dhaliya? bismillahi raxmaan raxiim. aada iyo aad ayaa umahadsan tahay. marka hore dabcan wax walba asbaab ayay leeyihiin. holland inta aan joogay waxaan la shaqayn jiray saacidaada soomaalida qoysaskooda iyo magaaladan degan dhibaatooyin aada u fara badan oo waxaan arkayay culays ummadda inta ku saaran. de waxaan is iri culayskan halkan ku saaran ayaa muddo aad saacidaysa bal root cause-ka meesha ay ka imaado mashaakilka bal ama isku daydaa wax ka soo qabataa. sababta marka aniga shakhsiyan igu dhaliyay waxay ahayd in gargaar aan meeshaasi ugu tegi karo oo baahida markaasi aan wax ka qaban karo, inaan isku dayo inaan wax ka qaban karo in kale. dabcan qof walbana sabab ayaa ku dhalisay, keligeyga maaha, dad badana runtii aaday magaalada. dadkaasaan ka mid ahaa. xilligii maxaakiimtana ummadoo dhan aa u riyaaqday, qolooyinkaasina waa ka tirsanayn oo aan saacidayna bal cadaaladda iyo ummaddii wixii ka maqnaa ee dib usoo noqday. waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa igu dhaliyay inaan ku noqdo magaalada muqdisho, anoo markaasi aaminsanaa inaan contribution aan ka geysan karo. markii aad go-aansatay inaad muqdisho ku laabato, intii aad sii socotay marna ma istiri olelehe go-aan qaldan ayaad qaadatay? runtii horta inta aad sii socoto waxbaa ku wado un drive, waxbaa ku wado, laakiin reality waxay noqonaysaa marka aad gudaha gasho oo aad aragto. maalan waqtiyo waxaa jira oo qofka uu very emotional uu noqonayo markaa ka degto garoonkii aadan cadde oo markaasi ama si u burbursan oo haddana diyaarad ama dubay kaa qaado ee ku geynayso adigoo haddana aan ogeyn exactly dadka marka meesha airportka ma lagugu imaan doonaa mase ma lagugu imaan doono, adoo aan aqoonin guriga aad tegaysid. laakiin nasiib wanaag annaga hadee waxay ahayd dad shaqo u tegaya markaasi dhibaatooyin badan lama kulmin runtii, oo waxay ahayd un go-aan aad qaadatay oo haddana aad diyaar u tahay in maxaa la yidhaahdaa wixii markaasi go-aankaasi aad qaadatay kaaga soo baxo inaad mataqaanaa iyadoo runtii ay challenges fara badan ay jireen, haddana un magaaladaadii oo aad ku dhalatay aad ku kortay markaad ka soo degto adigoo huba in mataqaanaa boqolkiiba boqol bayaadan hubin, laakiin adoo markaasi og dareen kugu jiro in meel aa u socoto kuu baahan eena lagugu soo dhaweynayo. marka waxyaabahaas yaa aragga koowaad airportkuu kaaga bilaabanayaa. dabcan markii aada muddo ku nooleed yurub iyo dibadahana waa arkaysaa inay kala duwan yihiin, oo airboorada caalamiga markaa ka degto iyo airboortka xamar markaa ka degto fikirka aad qaadanaysa waxa gudaha kugu sugaayo airboortka ka arkaysaa markaasi. markii aad tagtay muqdisho oo ay muddo kugu dambeysay, maxay ahaayeen caqabadii ugu horeeyey ee ka hor yimid? horta runtii aniga shakhsiyan markaan tegayay dee waxaan u tegay madaxtooyada inaan shaqo ka qabto. meel waxaad tegaysaa ummad ay joogto, ummad haddana 20 sano ay qof oo bini aadan maanta haddii la raadiyo nin shakhsi buugaag laga yaabo in laga helo oo laga akhriyo experience-kii dhacay, laakiinse qof khibrad u leh ummad 20 sano fooda ku dhex jirtay, khibradaasi qof leh si uu u saxo adduunka meel laga helayo ma jirto. sababtoo 20 sano ciyaar maaha, 20 sano ee ummaddaasi fooda ku jirtay. dee magaaladii oo dhan aa challenges wada ahayd, xafiisyadii oo dhan oo even ilaa ay hadda ayaa challenge ka jira. haddii aan maalan example yar aan soo qaato, waxaan tagnay madaxtooyada ani muddo markaan joogay ayaa waxaa lee magacaabay maamulka shaqaalaha. dabcan ummad oo shaqaale oo waxaad tegaysaa meel already ay joogaan, ayaa lagaa rabaa marka in xirfadii shaqaalahaas improvement aa ugu samayn lahayd, aa ogolaysiin lahayd inay process. sababtoo qofka meel joogo oo already ka shaqeeyo waa adag tahay si loo fahamsiiyo in mataqaanaa sidii qof shaqo doon inuu ekaado. marka waxay noqonaysaa un dadkii in maskaxdooda iyo caqliyadooda inaad fahamto kadib
ula shaqeeyo sidaasi marka qofkii u baahan in tababar uu helo qofkii u baahan ama dareemayaba ama asaga laftirkiisa ku jiro inuu horumar sameeyo sidaas oo kale aan intaa joognaan waxaan kusoo daraynay tartiib arday oo magaalada wax ku bartay oo iyagana dabcan inay la koraan maamulka markaasi samaysmaayo markii hore kolley waxaa jiray duruufo kaa soo waday magaalada muqdisho hadda markaad dib ugu laabatay wejigan cusub iyo duruufihii hore maxaa u dhexeeya horta runtii waa waxyaabo ummadda aniga muqdisho waxaan kasoo tegay anoo caraysan oo aada u xanaaqsan oo dhibaatada markaasi ka dhacday ma ahayn dhibaato qof caadi ah oo u dulqaadan karo in fact ismana lahayn muqdisho ku noqonaysaa oo waxyaabaha marka bini aadanka isbeddel ku dhacay ayay ka mid tahay kuma aanan fekerin 91 markaan kasoo tegay Soomaaliya maalin maalmaha ka mid ah ayaa ku noqonaysaa isma aanan dhihin laakiin haddana anoo markaasi aaminsan inaan wax ka qaban karo ayaan ku noqday inta aan joogana hadee waxyaabo badan oo ka daran example waxaa jirtay gabar oo lagu afduubay oo Canadian journalist ahayd oo lagu afduubay xamar 15 bilood lagu haystay ayaan airportka xamar aan ku arkay iyadoo oo kusoo noqotay anoo markaasi mas'uul ka ah maamulka gobolka Banaadir marka waxa waaye qofka mar dhibaatadaasi soo maraysa iyo la dagaalan oo dhibaatadaasi uu leeyahay si aysan ummad kale ugu dhicin ka hortag oo wixii adigu qabsaday aysan ummad kale qabsanin marka waxyaabahaas yaa is urursanayo taasaa ku kalifaysa marka in qofka uu sidaas dib ugu noqdo oo is yiraahdo bal waxaa contribution ka geysan kartid do it xamar markii aad ku laabanaysay waxay ahayd waqti aad u halis ah adiguna waxaad halkan kaga tagtay caruur iyo xaas marka intii aad halkaas joogtay marna ma istiri aleelahe go'aan qaldan ayaad qaadatay طبعا qof bini aadan oo aysan marka aragto runtii haddana xilliyo waxay ahayd aad u adag ramadaan waxaan la kulanay oo aysan xabadda aysan istaagaynin oo qolooyinka markaasi dawladda ka soo horjeeday ay aaminsan yihiin bisha ramadaanka dagaalka ay qaadaan inay ku najaxayeen oo xataa salaada subaxdii marka la dukanayo kale inay dagaal soo qaadaan iyo especially afurka marka la gaaro طبعا waa isweydiinaysaa marka su-aasha markaasi kugu dhalanaysa waxaa waaye sababta imid maxay tahay halistan oo jirto laakiin aniga iyo dad ila mid ah waxaa ka xoog badnaa waxyaabaha ay rabeen inay qabtaan isbeddelka ay rabeen inay sameeyaan ummad 20 sano dhibaato ku jirtay dee qof shakhsi ka saari kara ma jiro laakiin in la helo koox isku aragti ah isku fikir ah oo waxaas inay bedelaan طبعا hadda maanta meesha aan joogno waa la arki karaa oo magaaladii oo markaasi 10% ka yaray dawladda gacanta ku haysta oo waxa lagu tilmaami jiray dawladda tabarti yar ee madaxtooy iyo agaarkeeda aniga shakhsiyan marka anaa waxa isku dayay inaan tago 6 degmo markaasi oo dawladda ama taageerayaashooda ay gacanta ku hayeen 6 degmo waxaan soo arkay marka dawladda dhul baaxad ka weyn in ay gacanta ku hayso iyadoo cabsidaasi ay jirto oo mar walba aad wax la kulmaysid dhibaatooyin aad la kulmayso haddana waxaa ka weyn waxa ku wado oo ah magaaladan oo aad ku dhalatay aad ku soo kortay aad wax ku baratay wax gacan ma ka geysan kartaa oo aan dhahayn adduunka waxaa jira mashaariic la isticmaalo oo dib u celi wixii ku soo galay oo kale giving back waxbaa lagu soo baray wadankii aad ku soo kortay macaankiisii aad soo aragtay ummad fara badan ilaa hadday jiraan oo raba inay abaalkii magaaladaasi ay u gashay inay dib u celiyaan magaalada muqdisho muddo 3 sano ayaad joogtay marna ma kugu soo dhacday niyad ah inaad isaga noqoto waa runtii waa su'aal fiican waaye marar badan ay u dhalatay aan intii markaasi isla hayd waa ka geysatay waxa yeelaysaa now isaga tag oo hadda مثلا example ugu dambeeyay waxay ahayd 3 sano markay ii buuxsantay 3 sano ii buuxsantay oo aan ahaa gudoomiye ku xigeenka duqa magaalada 3 sano markay ii buuxsantaan waxa isdiray it's enough sababtoo magaalo oo runtii aad culays badan qofka joogaana fahmi kara marka oo waa magaalo wada challenge maalin walba oo waaga uu baryo ilaa shaqada markaa tagtay ilaa aad ka soo baxayso waxaa ku shaqaynaysaa culays oo qofka bini aadanka mararka qaarkiis uusan xamili karin marar badan is iri laakiin haddana
waxba ay celinayo oo dhahayo bal you can do something wax waa qaban kartaa bal adkayso ilaa ay haddana alxamdulilah ku qanacsannahay waxyaabaha aan qabanay iyo howlahayna meesha ay marayeen mudane muddadii 3 sano ee aad joogtay muqdisho ma jiraa waxaad ku faani karto oo aad ku soo kordhisay dalka horta alxamdulilah magaalada dabcan marka aad is sheegtay iyo markay ummaddu ku sheegaan aniga team ayaan la shaqeeyaa magaaladaasi gaar ahaan gobolka waxaan tagnay asagoo shiddo ay ka taagan tahay oo structure iyo nidaam iyo wax maanta la dhihi karo hoolay ku socon karaan inaysan jirin waxaan tagnay iyadoo typewriter lagu shaqeynayo iyadoo dadka wada shaqeynaya ay isfahamsanayn iska daa annaga inaan fahamnay iyaga dhexdooda inaysan isfahamsanayn barnaamijyada aan sameynay oo muhiimka ahaa dabcan ummadda markii meel uu dhulgariir ka dhaco ama burbur uu ka dhaco ama even teen oo kale hadda waa dhulgariir ay u dhigantaa oo bini aadan uu sameeyey waxaa arkaysaa burburka magaalooyinkaa arkaysaa daariyoo burburay la fiiqday dhagaxyadii meel laga qaadayo meel kale lagu dhisayo maskaxdii marka sidaasay u burbursan tahay waxyaabaha marka aniga aan shaksiyan aan ku faani karo ayaa waxaa ah gobolkiioo maanta inkastoo meesha aan ku shaqeynayna ay tahay xaruntii wasaaradda cadaaladda ayaa haddana gobolkii oo dhisan hoolalkiisoo samaysan xafiisyadii oo qalabeysan oo combyutero iyo furnitures ay yaalaan typewriterkiio hadda lagu socdo in laga guuro waxyaabahaas oo dhan marka waa achievements lagu faani karo barnaamijkan oo ugu weynaa oo tiiraanya bixinta ahaa oo kale waa fikir gobolka yimid waayo oo haddana soomaaliya oo dhan inuu gaaro laga yaabo barnaamijkaasoo ah bal way xasidnimadan fogaatay naceebkan fogaaday dadkii oo aan israbin maxaa isu keeni kara barnaamijkaasi marka oo ah runtii tiiraayin bixin ama trauma healing daaweyn qofka maskaxdiisii caqligiisii inuu isbedel uu ku dhaco bal walaalkaaga ha xasdin ha nicin waxyaabahaas oo dhan marka runtii waa wax aan ku faani karno aan dhihi karno intaasi shalay meeshiisii taagneyd maantana intanay taagan tahay oo ummaddiina markhaati ay ka tahay magaaladii oo maanta lagu soo qulqulayo lagu soo noqonayo annagoo aragtidaasi ama visionkaasi waxaan qabnay annagoo aan weli arkin xaaladda sida ay noqon doonto ayaa haddana hadda xeebtan dadka ay ku qulqulayeen oo la aadayo inkastoo mararka qaarkiis faa'iido iyo khasaaraba ay leedahay oo ummad badan hadda mararka qaarkiis inay ku geeriyoodaan dhaqankii waxoogaa yar culaysyo oo dhaqano aan laga aqoonin inay ku imaanayn haddana annagaa markii magaalada ay xorowday dadkii ugu horreeyo tagnaa ahayn isbartiibadan hadda cagaarkii la dhigay waxaan ahayn maalintii la xoreeyey kadib dadkii tagaan ahayn oo aan hayno muuqaaladii iyo sawiradii iyo sida ay ahaayeen therefore waxaa arkaysaa isbeddelka meesha aa u socotay oo isbeddelkiiyo ummaddiina ay kula arkayso maaha wax adig keligaa arkayso laakiin ummaddii ay markhaati ka noqonaysa ay leedahay magaaladii oo iftiinkii soo noqday nadaafadii si tartiib tartiib wacyigii dadka oo ugu muhiimsan oo dib usoo noqonayo waxaan rajaynaynaa marka waxaa waaye un achievementskaasi la gaaray in ummadda inaysan ka kala go-in oo ay sii socoto oo la helo marka hadda haddii even ay dhacdo in isbeddel uu dhaco ama xilli doorasho la gaaro oo aan ka tagno waxaan ka tegaynaa foundation base oo dhisan oo leh structure oo leh maamul oo leh aqoon oo hawshii ay ku socoto dhalinyaro badan hadda website-keena haddaad tagto waxaa arkaysaa intaasoo boqolaal oo arji soo qoranayso iyagoo qaraabo kiil iyo aanan sugaynin rajana aanan ka lahayn in gacanta la qabto oo maxaa la yidhahdaa open fair equal opportunity for all Somalis waxaasoo dhan waa achievements aan ku faani karno muqdisho dad badan ayaa markii hore iskaga soo qaxay dadkaasi qaarkood waxay ku doodayaan in haddii muqdisho ay ku laaban lahaayeen guryahooda dad kale ay haystaan arrintaasi maxaad ka yeelisaan wallahi horta runtii nasiib darro waaye in mataqaanaa magaalada dhamcan waa burburtay waa laga guuray maalin walbo guddoomiyaha gobolka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqa oo yidhaahda soo noqda ku soo noqda guryihiin dabcan cillada waa jiraysaa qofkii caddayn kara inuu gurigan uu leeyahay oo documentskiisa ama markhaatiyaashiisa wato automatically gurigiisa waa helaya annaga marka aragtida aan leenahay iyo waxa aan ku fikiraynaaba waxa aaba ay qof oo Soomaali oo baahi ay ka soo gasho in magaaladan uu ku noolaado inuu heli karo dhulkii inuu helo deegaan fiican inuu helo
aragtideena marka waa ka fog tahay qof dhahayo gurigayga laga haystaa iyo maxaa la yidhahdaa laga yaaba hadda in markii aan deeply loo waraaqo oo waxaa la samaystay oo fake forgery la samaystay dad waxaa jira guryahoodii 91kii duruufo darteeda u gaday oo hadda leh maalan aniga gurigii ma gadin gurigaygii macnaha dibaan u leeyahay waxyaabahaas oo dhan marka waxay u baahanaysaa si hadda guddiyaaba jiraba oo arrimahaasi loo xil saaray in markii khilaaf u yimaado inay iyaga ay xaliyaan marka maamulka hore u ballan qaaday haddana waa ku celinaynaa qof dhul uu lahaa ama guri uu lahaa oo xaqdarro lagu haysanayo ma jirayso ilaa iyo madaxda qaranka oo dhan waxaa laysku raacsan yahay oo uusan shaki ku jirin qof walba inuu hantidiisa uu lahaa oo xaqa oo sax ah inuu dib u heli doono waa la ballan qaaday min madaxweyne ilaa iyo maamul gobol marka inaan loo isticmaalin siyaasad ama shaki dad la gelinayo magaaladani dadkeedii waa maqan yihiin waxaan leenahay ku soo noqda ee wixiina sheegta waana helaysaan 10 sano kadib sanadka 2023 maxaad is leedahay muqdisho way u ekaanaysaa runtii annaga markaan maamulkaas imaanaynay aniga iyo madaxda kaleba oon riyaan arkaynay riyadana mar bay rumowdaa marka dream come true shalay cid isdhehaysa male isbartiibada ayaa xor noqonayso oo maanta cagaarkaasi uu fidsan yahay oo berita ciyaar ay ka bilaaban doonaan xeebihii jaziira iyo lido ayaa ummaddii ay beacheska soomaaliya oo ugu quruxsan africa oo aan la isticmaalin haddana ummaddii inay ka faa'iidaysanayso 2023 waa 10 years from now waxa aan u jeedo aniga Soomaalida kalena runtii ay u jeedo ayna dib ugu soo noqonaysa waxa magaalo number 1 ammaan noqonayso boqolkiiba boqol lagu kalsoonaan karo number 2 magaalo noqonaysa nadiif u fiirsadana qofkii 700meedii Soomaaliya joogay waxa soo dhan wax jiri jiray waay magaalo nadiif ah oo wadooyinkeedii iyo dadkeedii dadka inay nadiif yihiin magaalo oo la leeyahay hadda qaxooti baa degan tanna ummadana way cadaan doontaa waxaan leenahay qofna wadankiisa qaxooti kuma noqdo marti ayuu ku noqdaa Soomaaliya oo dhan Soomaaliya waa u siman tahay qofka meel alla meeshuu doono ayuu ka degi karaa waxaan arkaynaa 2023 ummad wacigooda uu koray oo barwaaqada wadanka arki kara isdhisi kara gaari karna ummadaha facooda ah example yar haddii aan 2023 waxaa ii muuqata Soomaaliya oo gaartay heerka مثلا imaaraadka oo kale heerkeeda inay gaartay imaaraadka petrol ay ku gaareen annaga waxaan leenahay aqoon aan ku gaarayna sababtoo wixii dhulka ku jiray iyo baddi ku jiray iyo xoolaheeni waa soo saari weyn laakiin shicibka markaa dhisno human resources marka aan dhisno ummadeena ayaa gaarsiinaysa marka heerkaasi intaasina waa ku qanacsanahay inta aan sheegana 2023 intii nool waana arki doontaan 10 sano kadib adiga ikrahaan waxyaabahaasi aad soo sheegtay kaalin intee leeg ayaad kaga jirtaa waxaan filayaa markaasi oday bakooradiisa wato oo weli laakiin gudaha dhalinyaro ka ah macallin ah waxyaabaha aan jecelahay waxaa ka mid ah in waxa igu jiro inaan gudbiyo doorkeyga marka wuxuu noqonayaa 2023 anoo khibrad baaxad weyn la soo sameeyay oo hadda xataa magaaladan qayb weyn ka soo qaatay in ummadda aragtida perceptionka inuu ka bedelmo oo ah loo haystay magaalo adduunka ugu khatarsan inay tahay maanta magaalo lagu soo qulqulayo door weyn aan ka soo qaadanay in magaaladani ummadaha adduunka ku nool inaan fahamsiino in weligeed iyadoo dhibaatadaasi ay jirto iyo shidadaasi ay jirto inay dad ku noolaayeen dadkaasi marka inay istaahilaan wax ka fiican marka waxaan rajaynayaa aniga marka aan ku hanweynahay ma dhahayo iguma jirto aragti oo siyaasadeed inaan ama madaxweyne ama wax una noqdo laakiin waxaan noqon doonaa macallin ummadda waxbara si aysan mar dambe dhibaatooyinkii Soomaaliya ka dhacay aysan dib ugu soo noqonin aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa mudane Iimaan Nuur Iikar aad iyo aad adaa mudan daawadayaal waraysigii gaarka ah ee aan ula yeelnay ku-xigeenka duqa magaalada Muqdisho Iimaan Nuur Iikar maantana intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa inta aynu mar kale dib ugu kulmi doono barnaamij midkan oo kale ah waa Dalmar Media oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo